si looga miro dhaliyo hiigsiga fog iyo kan dhow ee xasilinta caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay diyaarisay ciidamo booliis ah oo lagu fulinayo qorshaha amniga caasimada kuwaas oo tababaro uga socdaan goobo kala duwan oo kamid ah magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqasho ugu tagay ciidamadaasi loo diyaarinayo dardargelinta amniga caasimada kuwa goobo kala duwan uga socdo tababaro ka kooban qaybo kala duwan si shacabka Soomaaliyeed u helaan nabad iyo nolol wanaagsan. ciidamadani ujeedada laga dheehan karay isla markaana ku dhawaaqayay suugaaneed ay ku muujinayaan sida ay diyaar ugu yihiin in shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan kuwa cadawga ee doonaya inay dib u dhigaan horumarkooda si aysan u helin nolol wanaagsan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ciidamada tababarka u socdo waxa uu mid u weydiinayay xaaladooda nololeed iyo tan tababar halka warbixino ka dhageystay macallimiinta siinaya tababarada. halkan waa dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu tababar uga soconaya ciidamo ka tirsan booliiska kuwa loo diyaarinayo inay ka qayb qaataan qorshaha dardargelinta amniga caasimada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre weheliyaan wasiirka qorsheynta taliyaha ciidanka booliiska iyo xogayaha gobolka Banaadir iyo saraakiil kale ayaa halkan booqasho ugu yimid dhalinyaradan ciidanka ah kuwa oo qayb ka ah ciidamada loo diyaarinayo qorshaha amniga caasimada ee Muqdisho si magaalada Muqdisho ay u noqoto mid kamid ah caasimadaha ugu nabdoon dunida. ciidamadan oo qaadanaya tababaro dheeraad ah ayaa soo bandhigay dholotus ay ku muujinayeen tababarkooda. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa uga mahadceliyay go'aankooda ku aadan inay naftooda u hibeeyeen ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan nabad iyo horumar. marka laga yimaado booqashada Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay ciidamada kala duwan ee loo diyaarinayo amniga caasimada waxa uu sidoo kale kormeero uu ku sameeyay qaar kamid ah isgoysyada magaalada Muqdisho waxaana ka wareysanay hadafyada wax xambaarsanaa xogayaha gobolka Banaadir Cumar Cabdirasaaq Xuseen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caaw kormeer ku tagay xaramo kala duwan oo ay ku tababaranayaan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ku yaala gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu tagay 3 xarumood oo ciidamada ay ku tababaranayaan asigoo uu korgalaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira. xilligan hadda ay saacadu ay tahay 2 aroornimo ama Soomaaliya u taqaan 8 saac oo habeenimo wuxuu hadda kormeer uu ku soo ilaalay xarunta dugsiga tababarka School Bluesio sidaad ka warqabtaan waxaa jira ciidamo u xareysan sugidda amniga caasimada oo dhawaan soo qalin jibin doona ama soo dhameysan doona tababaradooda kuwaas oo aan rajeynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajeynayn inuu wax weyn iska bedelo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyay macallimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliiska ciidamadaas tababaraya kuna dhiirigeliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababarka ciidankaas. sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruucda kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka dugsiga tababarka ciidanka booliiska magaalada Muqdisho.